dhibaatadan heestaa waxay tahay waxa iska kan qaldan jaceylkeena ceebka waxa kaloo iska kan qaldan ka helitaanka iyo ka helitaan la'aanta xamdi qabiilaysata tahay habar waan kugu ixtiraamaya fikradaada aad iyo aad u mahadsantahay qofna inaan ku xadgudbo ma jeceli laakiin waxaan jeclaan lahaa in adiguna aniga fikradeedii ugu ixtiraamtid shalna go'aankaada igu jeclaata maantana go'aankaada igu nacday channelkana hadda igu cusub tahay noo subscribe garay hadda hore ila joogtana muuqaalka ligtiisa noo saar maanta ilaa iyo shalay waxay isu direysaan muuqaal luuq kasta oo aad leedahay xamdi muuqaalkan ka soo hadal waxaa jira maybe inaadna aqoonin dadka gaban ay yaqaanaan alla ilahay anigu habar naciimaan ama abay naciimaan dhahaa naciimo in liiraha umaleynaa committeegan ka arkay gabadhan ama habar yartaan aan ixtiraaman ku dhahaa habar yar laakiin da ku dhihi maayo kasoo hadla dhaday arrinkaas hore oo dadka dhowr qof oo youtuber isu gaareen kama soo hadlin kan laakiin waa ka soo hadlay waxaan uga soo hadlaa bisle oo la yaabay committeega horta anigu horaan waxaan u iri hal eray oo iga tagaa jiro oo ina dumarka Soomaalidu shakhsiyadan male maanta lagu soo celinaa aniga ugu dar shakhsiyadan ma lihin naag awoodo inay aniga fikradeed ugu mucaarado ma jirto mid kasta ayadoo anigu aan la xumahay ayay waxay tusinay inaan la wanaagsanahay laakiin qofka duu kula xun yahay wuu kula xun yahay duu kula fiican laakiin marna committeegaas u uradid marna aad kan u soo uradid adoo hal qofa ogow adiga ay shakhsiyadaada wax yeelaysaa يعني وحبي ما يجلس كوميتيجي واس وذا قبصدي قبيلة التواعي هذا هذا قبيلة التواعي يوسع علي قبيلة التواعي أوكي هذا مرت أنا قاعد بقية نعيمه غير الله السيو آتي هذا أمهات سنتهاي ونكون مهد علينا يا تن أن كلها أنا وحيتام كاجا مهد علينا هرتكو إنا يسوق قاعدتي وكاجا مهد علينا يلا بقى إنا يسوق حصتي وكاجا مهد علينا سدح أفر waxaan kaloo kaaga mahad celinayaa inaad igu fikir ahayn igu fikir duwan tahay fikradda laftirkeedana isku ixtiraamno waa wax aad iyo aad u wanaagsan waa waxa aynan Soomaalidu intooda badan aysan aqoonin in qofkan fikradda anagoo fikrad kala duwan haysano ee na dhex mari karto is xiriirin wada hadlin wada socod wada shaqeyn in dhex mari karto ayaan horta aysan aqoonin waan kaaga mahad celinaa naciim waxa soo qaadatay oo aad ka soo hadashay oo aad buug weyn ku soo qoratay wax alle wixii hadalhay oo arrinkii naciimo iyo leeyla aan ka soo diyaariyay aan loo qaad waqti aan wax ku soo qortay ma haynin laakiin saddex qodob bisaan rabaa inaan ka hadlo kii ugu dambeeyay oo waxaad sheegtay inaad hadda ka hor muuqaalkayga mid ka soo hadashay ma fahmin iskuul ku sii socday adigu waxaad sheegtay inaad aad ii jeclaat ina aragtay ina ah gabar wanaagsan oo qabiilaysata aanan ahay inaad fikradaheeda ka heli jirtay oo wax isla buri jirnay aadna aad ii jeclaan laakiin hadda aan qabiilaysato way noqday oo qof xun ahay aadna i nacday habar macaan koo fikradaada ayaad igu jeclaatay barnaamijyada aan ka hadli jiray ayaa jeclaatay fikradeyda ayaa jeclaatay laakiin anigu qofnimadeyda ma aadan jeclaanin iyo qofka anigu aan sababtoo ma taqaanidba laakiin waxaad jeclaatay dhankaan u hadlay iyo muuqaaladii aan ka soo hadlay markaas muuqaalada aad jeclaatay oo aan ka soo hadlay ee aad ka dhawaajisana waa muuqaalo sidii aniga ila qumanad aan uga hadlay maadaama sidii ila qumanad aan uga hadlana sidaas ayaad igu jeclaatay laakiin aqoonad ii leedahay ima aadan jeclaanin iyo shakhsiyadeeda qofkuna haduusan shakhsiyadaada adiga uusan ku jeclaanin biri hadii asagu sidoo rabay si ka duwan aad yeesho ku nacaya taas ayaa keenta markii ina inacdid ee ma aysan keenin macnuhu in aan qof xuno isbedel ahay waxa ogaataa qofka ilaahay hal mar ayuu abuuraa 10 mar ma abuuro shalay marka ay jeclaatana qof wanaagsan aad ahayd ay leedahana habar yar macaan maanta ma xumaan qurux badan ee shalay waxa jeclaad dhowr program ka soo hadlay ayaa adiga sidii kula fiicneed aan uga hadlay oo iskaga fikir ku ahayn oo jeclaatay maantana waan ka fikrad duwanaado waan nacday qofka noocaas laakiin maxay dhahan ma taqaanaa reer galbeedka wadamada aan joogno magac uu leeyahay laakiin xagga ay dhig magaciisa waxaan rabaa inaan kuu sheego habar macaan maanta anigu waxaan jeclaaday sidaad u hadashay laakiin qofnimadaada ma jeclaanin haddii markii biri sida anigu rabay aad u hadli weysid laa shaka waxa inaan ku nacaayo marka adiguna taa wadi waa taas marka tan jacaylka iyo naceebka
Soomaalidu jacaylkeena ceebka iskaga darsan sidii qofku markuu dantiisa ka dhaxarku dantiisa inaad u heed oo kugu jeclaado guurka xataa waxa laga yaabaa qofka aad guurstay inaad lacag ku gashay markay lacagtii ka dhamaatana qofkii shalay aad amaanaydo jeclaada u raxleynaysa la arko adoo caynaysid because qofka marka hore shakhsiyadiisa maadan jeclaan lacagtiisa jeclaatay lacagtina way dhamaatay soo marka qofku waa nacday marka tan waa iska sidii mooyaane anigu ma xumaan tan qabiileystada anigoo si kalsooni laha waxaan u leeyahay maanta qabiilisataan ahay kalsooni u dhahaa sababtu waxay tahay cidna inay nacdo cidna inay jeclaato buugga nolosheeda oo meeshaan yaalo iyo ka aniga ilaahay iyo qoraba kuma jirto meel ugu macaan tan in ma taqaana qabiilisata ahay kugu mucaaradi maayo fikradaada qabiilisata miyayna ma dhahayo because waan ahay xataa waxaan ka dhashay qabiila aad u jecelahay oo aad ugu faraxsanahay inuu ilaahay iga abuuray sababtu xitaa waan ahay waa dhiigayga dhacaankayga waan jecelahay si dhabahan u jecelahay nasabkayga iyo jinsigayga iyo magaalada aan ka soo jeedo idna anoo wijiska gadaayo dhima qabiilista ma qabiilkay wala ma dhima laakiin qabiilkay aad soo qaato channelkan qabiilada ka mamnuuca si qaldan u fahanteen qabiiladu waa ka mamnuuc markaan dhahaye ma dhihin qabiil ma jeceliyo qabiilkayga necbaha ma dhihin laakiin waxa iri channelkayga qabiiladu waa ka mamnuuc sababtay mamnuucga taana waxay tahay inaan channelkaygu ogolaado dadka in lagu dhibaateeyo hadda gabadhii la gubay oo kala tusaale kuuga soo qaada ninka gubay waa aniga qabiilkayga weeyaan garab ku siimayo xataana family-ga maanta oo ka dhashay gabadhaas ka dhalatay ku bogaadi maayo inay diye ka qaataan ninkaasi gabdho badan oo kale Soomaaliyeed oo galaafara sidii uu luulu yeela hal la yeelan taaganahay marka micnaheedu maaha haddaan qabiilkayga jecelahay inaan cidna wax ku yeelo qabiilkayga waan jecelahay waana ku faraxsanahay inuu ilaahay iga dhaliyay waana jinsigayga iyo sinjiyadeyda iyo meeshan ka dhashay waana jecelahay laakiin ogow qabiilkaygu kaligiis ma abuurmin qabiilkan waan ahaa qabiil kale ka sii sareeya jiro mid kale ka sii sareeya jiro mid ka sii sareeya jiro ka bacdina waxa u maleeyna ma aqal abtiriska inaan Soomaali ahay marka meeshan ka soo fiirsaday oo geedka salka weyn oo ka imid waa Soomaali Soomaalinimaduna aad agteeda ugu weyn tahay micnaheedu maahan marka haddaan qabiilista xataa haddaan qabiilista ahay laakiin qabiilistanimadeeda aan cidna wax ku yeelin xitaa kurbadayna hayso kulmatigana waa qabiilisato waa nacnay ereyga horta waa nacnay la yiraahdo Soomaaliya micnihiisa ma barateen ma taqaanaan waa nacay ina hadda qofkaas waa necbaha ina iraahdo waxaan u arkay nafteeda inaan bahdilaayo waayo qofka necayb wax uga maqaadi karo laakiin waxaan dhihi karaa qofkaas kama helo because kama helin dhaqamadiisa laakiin waa necbahay nacay maxaa uga qada nafteeda waxaan barayaa hadallo qaldan aan barayaa tusaale ahaan hadda wadi hortimid wadi salaam wadi haruuftay annagu ku salaamay micnuhu maaha ina adigu qadirna laakiin micnuhu waxay tahay nafteeda baraya wanaaga laakiin marka committee ku soo qoraan naas waa nacna waa qabiilista waa hore ogeyn qabiilista tahay qabiilista waa qabiilkay waan jecelahay nacaybkana adiga naftaada bahdilaayo inaad qof adigoo kala aad nacdid oo aad gaartay heer waa necbaa aad jiraadid oo naftaada qaladaadka aad bartid adiga ayaa u baahan toosin qurux badan macna iguma fadhiso tan kale saddexaad oo aan rabay inaan habar naciimo sheego waxay tahay habar yar channelkan dhowr qof oo qabiilkayga hoosa ayaan uga hadla qaladaadkooda tan hadda qaladaadka dhacana wax anigu aan bogaadinayo ma ahayn laakiin ayshka ayaan aad u aqaanaa adigaas habar naciimo hadaan maanta ku soo martiyo oo wadanka Finland kugu imaado degantaas inaan arkay oo aan kula soo cunteeyo kula soo ceeshoon kula soo darso ee aan biri noqoto inay qofka laga hadlayo naciimo noqoto haddaan ku sheego waan ka gaabsanayaa sababtu waxay tahay ceeshku waa wax aad iyo aad u muhiim ah agteedana qiimo ka leeyahay qasama inaan isku fikrad nahay waxa laga yaabaa inaan isku fikrad ka ahayn dhankaas laakiin fikradaha kala duwan aan isku ixtiraamno anigu ceesha darbi ay celiyaa ere darbiga celiyay waa darbi waalid dadka ha uga hormarin arrinkan asaga ayaa beentiisu imaanaysa beeni meelna ma tagto inta ay bulshada idu runta ka ogaanayso ka gaabsaa la yiri hadda anigu qof xun ahay waan ka aamusi karay sumud waxa kama soo ogaanaan dhihi kare ya iqasbay cid ima qasbin laakiin ina been sheego oo nafteyda inay been leey noqoto anigu aan nafteyda baro aniga ay nafteyda xumaan u tahay cidna wax ku yeelima
هذا ما تحمى هاي هذا ما تقف عايو هذا ما تأفلق دودو انت بقى أنا نفتي لتربية ده هلين عايو لكن أدي وحبكم ييلين وروح بدل مركا انتي صار فستان waxaan iri been inay ma sheegi karo mar been sheego runtana darbi celiya ayaa jira arrinkaana mar rabay inaan ka hadlo wadi dhaliili kartaa waa fikradaada waana kugu ixtiraamaya habar macaan waad jeclaatay waa fikirkaaga ra'yigayga ayaa jeclaatay maanta waad inacday ra'yiga ayaa kula qaldan laakiin ereyga nacaybka la yiraahdo ama waan ku nacal la yiraahdo waa aad weyn laakiin anagu aan boos kasta ku buuxino sida jacaylka oo kale hada wadanka deganahay maalinta xiisadan qaata waxa la yiri waan ku jecelahay dad qof Norway ku tiraahdid isla markii wuxuu ku fakarayaaba inaad ilmo u dhashido isku guursataan oo isla orodaan oo isjeclaataan laakiin anagu iska jecelnaa qofka iska dhahnaa marka fikirkaada kama helin iyo waan ku nacabahay waa laba kala duwan iyo waan ku nacay waan ku jecelahay iyo waan ka helaana way kala duwan tahay xoga ereyadaas ka keen qaldan aad ayaanan kugu mahad celinayaa fikradaada gabdhaha committee ku raftay ee alxamdulillaah qabiilisatana si kalsoon ayaa waxaan leeyahay haa waan ahay waana jecelahay qabiilkayga laakiin qabiilkayga cidna jaceylkiisa wuxuu kuma yeelo qofku markuu naftiisa jecel yahay qabiilkiisana jecel yahay iyo qabiil kasta jeclaa karaa wallahi ina been ku daarayna qabiil Soomaaliyeed oo aan maanta nacabahayo ma jiro sababtu waxay tahay micna aan ku nacameesha maya sida aan qabiilkaygu u jecelahay oo ixtiraam ugu haayo inaan ka dhashay ayaan qabiil kasto Soomaaliyeed ixtiraam ugu haayaa Soomaalinimadan way igu weyntaa waana jecelahay mi fahanteen laakiin idna gardarra aan garab ku siimayo qof ku taagsanay taagsi uga yeeli maayo sheekada naciimo darbiga soo xirnay naciimo cidna bistoolad uma sidan cidna kal uma qaadan cidna ma garaacin fil ayay inii jishay filankina adinka ay la baroorateen markaad baroorateena anuguna in ila ooyintiina keedsada arrinkaani waa beenay oon beeneeyo darbi celiya jir waana ceeshka waana ceshum laakiin naciimo qofna ma dilin qofna ma caayin qofna ma dulmin لكن program ayay inii soo bandhigtay adinka ayaan dhageystay inaad ku diidin adinka ayaa lahaa inaad ku yeeshaan xaqiiqo markii la rabo adinka ayaa lahaa laakiin anigu inaan qofan soo wada ceeshnay aan beentisa sheego darbi celiya jir waana waalidkayga waana ka noqday waxaan la hal shuruud aan ku xiray arrinka maalintu rumo waan ka soo hadlaa waana ka soo hadlay maalintu arrinka banaanka u soo bax inuu u soo baxayna waa la sheegay waxa la yiri adigu arrinkan ka gaabso waa uu soo qarxaa meesha Rudwaanu ka soo qarxaa Rudwaana beenti ogaado shakisan adigu Rudwaanaaba arrinkan asaga banaanka imaad doonee adigu xamdiye tartiibtooda wax sug de walaalayaal naag wax sugtana waa ahay laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo committee halkaan aad ka qoraysaan ka halkaas ka qoraysaan isku meel ka dhig anigu qof wax dhaliili kara waxna amaani kara ayaan ahay qof dhaliisha qaada kara diidi karna waa ahay هذا اللي waxaan ku soo gabagabeeyay oo halkan ku soo dhigay jacaylka iyo helitaanka nacaybka iyo ka helitaan la'aanta aan kala barano micno kala duwan ayuu dunida ka leeyahay waxamdihum dikooro oo nile maalinteeda halkaan ku soo gabagabeeyay habar naciimana waxaan leeyahay aad ayaan kugu mahad celinayaa channelkeeduna waxaan u maleeyaa inuu yahay dhaqaaq aad dhaxashiine gabdhahiga Soomaaliyeed ugu xirna waxaan leeyahay ku xirma waxna wad ka faa'iidi doontaan ay diinta islaamka ugu horeysay wacdi ma sha Allah ayadana waxaan leeyahay habar macaan jiro joog aad wada u mahadsan tahay gabadhaadi oo dhaliishaana ahay waan dhaliili kartaa shalna fikradeeda jeclaata maanta ayada kula xumaatay wax dhibaataana ma lahan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalinta ayni wanaag